kabacdi waxaan idinka mahadcelinayaa marka hore qadadan sharafta leh ee taariikhiga aynu isugu nimid dadkii xildhibaanada ahaa ee labada aqal matalayay ee Jubbaland saldhigoodu ahaa waan isleeyahay waqti hore yaa kulan noocan oo kale idinku dambeysay anaa idinka mahadcelinayaa jibitaanka iyo inay qadadan sharafta leh inoo dhacdo inuu isarayno muhiimadda oo dhan ay leedahay inaan bal isarayno oo kulano bacdama magaalada la yimid shaqooyin ay socdaan shaki kama jiro waddanka Soomaaliya maanta dadka ku matalaya laamaha sharci dejinta dowladnimadana asalka u ah waa intiina halkaa fadhida iyo in la mida oo maanta qolo waliba ay meel joogto waxaana hubaala inaan garanayno waddanka aan ku noolahay ee sharci dejinta u tihiin meesha uu ka yimid iyo meesha uu maanta taagan yahay haddii aynan jirin markaa niyad wanaag iyo wada shaqayn iyo is-ogaansho iyo dadku inay isku celceliyaan shaqada la qabanayo qof waliba wanaagga uu ka raaco waxaa inta badan timaada dhibaato ama caqabad waddankeenuna uuna ogolaan karin ama uuna fursad u heli karaynin ay caqabadoo ku timaada way ku adag tahay inuu ka doobaxo ama ka dhexbaxo waxaa aad maanta iigu ah sharaf weyn inaan xildhibaanadii 51 ahaa ee labada aqal ee Jubbaland bayskoodu ahaa intoodii badnayd ay joogtay maanta aan halkan wada joogo marka koowaad waxaan rabaa inaan idiin sheego dadku waxaa lagu jiraa waa siyaasad masaajid laguma jiro waxaad ka shaqaynayseen waa siyaasad waxaan ku dhex jiraay ma aha qofno qof kale xoolo uma raaco ma jirto masaalix shakhsiya siyaasaddu waxay keentaa kala aragti duwanaansho waxay keentaa fikirkoo lagu kala duwanaado waxay keentaa istiraatiijiyada oo aragti kala duwan lagu kala qaato inaan horta loo qaadanin inay jirto wax nacayba ama shakhsi kula dhexeeya ama wax dan gaara oo dadku ay kala leeyihiin asal ay u tahay in la iscafiyo oo caadi la iska dhigo sidaa markaan leeyahay waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo shalay waan garanaynaa Jubbaland markii laga imanayay waxaan markaan isteediyada isxabanayna waxaa loola jiray Axmed waxaa lahayd qofka keliya ee baarlamaankiisa saamaynta ku lahaa hadday noqoto gacan iyo hadday noqoto qalbi fiicanba waxaa intaa soo raacaysay weliba markaan idin soo digay dardaaran baan idin soo siiyey dardaarankaan idin soo siiyey wuxuu ahaa mas-uuliyaddu inaad xildhibaannimo noqotee bay anigaga eg tahay waddankii wakaas dabiirkiina wax ku doorta taladiinnu ha idin gaadhsiiso caqligiinnu ha shaqayso sidaas maahayn ma raba inaan idinku eego dadka qaarkii waxoogaa qaar baa hoos fooran iyo waxbaa jirjira haddaad dowladda la shaqayseen oo doorateen oo soo dhoweyseen dabiirkii aan shalay idinkula dardaarmay bay ahayd idinkuma eedi karaya soo maaha hadday anaga iyo dowladda waxyaro jirjireenna maanta wax dhibaato dhexdeeda yaallaa ma jiro waanu ka heshiinay haddii waqtiyada qaarkood aan lahaa anigoo nimankii hebel iyo hebel lahaa maanta gurmad uga baahantay maxay kuu kaalmayn waayeen waxay yidhaahdeen niyo damiirkii hore noo sheegtay waanu ku jiraaye wax kale ma geli karo marka waxaan rabaa hadda taas inaan saa u ogaano oo caadi la iska dhigo aanan idiin sheego maanta qofaan waxu qabaana inuuna jirin idinkana qofkii waxii qaba aan rabo intii la iscafiyo inaan horta innagoo caadiya wada hadalno intaa ka bacdi waxaan maalmahan ka hadlaynay mustaqbalka waddanku see uu noqonayaa doorashada dhacaysaa maxay noqonaysaa waqtigan oo kalena waa taqaanaan xildhibaanada wareerisaa ku xidhan oo xilliga tiiha aad maqasheen reer binu israa'iil 40 sano ay la wareegayeen waa waqtigan xildhibaanadu waxay ku jiraan oo kale
waa marka xildhibaan waliba intuu istaago sharciga bedel oo xeerka bedel oo kan ekaysi oo suuradii intuu tilmaamo wuxuu noqonayaa sharciga la raabid isaga u muuqanaya taa waxaan rabnaa inaan ogaano waddanka aan ku noolahay midka uu yahay maalmo dhowey doodayada waxaa aada u badnayd madaxweynaha jamhuuriyadda iyo aad ba waxaa looga doodayay waa inaan qabanno doorasho qof iyo coda waa in 4.5 laga tago waa in axsaabtii la ogolaado waa in wakhtigeedii lagu qabto waxaasoo dhan waxaan istusnay inay tahay wax aada u fiican progress fiicanoo in la qaato ay u baahan tahay meel fiicanoo waddanka la geynayo laakiin marka u dambaysa waxa kuugu dambeeya waxaa weeyaan adigu meeshaadan dhaafi karin inaad ogaato leebalkaaga soomaalidu maanta waxaan hadda aada ula yaabanaa ra-iisul wasaaraha la magacaabayo dadkii waxaa la leeyahay 8 February waa inayna dhaafin xildhibaanadu waa inay ka tagaan hadduu yidhaha maanta intuu istaago ra-iisul wasaaruhu war salaada aan tukano bal salaatul istisqaa aan tukano rawdoon waxaa la leeyahay maya doorashadu raba inuu dib u jiido salaada uu sheegayo dantuu kalaya waa doorashada mana aha waxaa waqtiga aan ku noolahay iyo dalkaan ku noolahay baa u suuraysan sidaas waxaan rabaa markaa kuwa xilka haya maanta iyo kuwa xilka raadinayaba in la ogaado waddankani niyad wanaag buu halkaa ku soo gaadhay doorasha inay dhacdo wakhtigeeda inay ku dhacdo hadday ku dhici weydo wakhti la yaqaano farsamo ay ku timaado inay noqoto laakiin waa inuunan midna cudur ka qaadin wakhtiga midna uunan cudur ka qaadin wakhtiga oo labada dhinac aan wakhtiga cudur looga qaadin midda asalkii waa middaas waan fadhiisannay waxaan u malaynayaa 2 sano ku dhowaad intay isu yimaadeen mas-uuliyiinta fulintu markaan labada aqal ka reebno waa dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha mayna dhacayna kulantii la isugu yimaado in la isweydiiyo oo warasaan idhaahnayo kan waxbaa ilaa baydhabo la soo waday heshiisyaha la gaaray waxaa la hala fuliyo markii u dambaysay waxay noqotay qaaba qowseen oo adna waqtigiina wuu soo gaadhay qolihii jaaniska sugayana nooliya wuxuu soo akhriya war dheer oo ah waana naa sida wax u socdaan waxaa artaa in dib loo dhigo extension ma jira iyo kalay noqonaysa waxa aanu hadda gaadhnayna dan baanu moodnay sababtoo ah waxaa laga doodayey ee taallay waxay ahayd war doorashada aan doonaynay ma qaban karaa xilligan ee shuruudahaas leh oo dariiqaas kale haddii la qaban waayo deganaanshaha iyo xasiloonida waddanka asale ma aha doorashada iyo nooceedu ma aha asalku waa in xasiloonida siyaasadeed iyo stabilityga la ilaaliyo midda dhabti waa middaas dhabtuna waxay tahay waxaa aada looga doodaya waliba madaxweynuhu culays badan uu saaraya war doorasho qof iyo cod aan gaadho waad garanaysaan 2016 dooda ugu badan waxay ahayd 4.5 iyo qof iyo cod iyo axsaab iyo hala gaarsiiyo hadda laakiin maadaama aan garanayna 2016 iyo hadda wixii qabsoomay dareenka hadda aan istusnay wuxuu ahaa in hadda la sameeyo khaaridadii 2024 shaqada waddanku ay ku socon lahayd oo hadda laga bilaabo 2021 doorashadu markay dhacdo in la galo stebiska la qaadayo sharciyada la meel marinayo shabaabka sida loola dagaalamayo tirakoobka waddanka sida loo samaynayo 4.5 sida looga gudbayo doorasho noocaas sida ku dhacayso waa in dowladda soo socotaa ay qaado loo dhigo tallaabooyin 1 2 3 4 5 leh oo la rabo inay meel mariso haddii kale waxay noqonaysaa kii yimaadaaba inuu ku mashquulo waxa isaga markaa firshankiisa u ahaa markay doorashadu soo dhawaatana la isku buuqoo la yidhahdo hadda maxaan qaban karaa waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo hadalkayga war xildhibaanoha la iscafiyo waxaan u malayn ani cudur badan igama qabtaane laakiin anana isleedin cudur ba idinka qabaayo odaygu dagaal dheer oo soo galay maydaan u helinina saasuu qabaayo hal qofoon waxu qabaa ma jiro warcad soo maa taas oonan ka mujaamalaynaynin oona qofna calafkiisa iyo nasiibkiisa shaqo ku lahayn oo aan ka shaqaynayno sida ugu wanaagsan ee shalay aynu ku soo kalaan tagnay 2017 January markaan soo kala tegaynay haddana inaan rabo inaan halkii ka waxayno kulankan kulan noogu xigay oo hoteelkan ku qabanay wuxuu ahaa kii
doorashadii madaxweynuhu markuu dhacday aan idinkula hadlayey way asal u ahayd ra-iisul wasaare xalay la magacaabay waa nin dhallinyaraa shalay waxaan idinku soo diray damiirkiina wax ku doorta ninkaa damiirkiina ku dooratay ra-iisul wasaaruu keenay ra-isul wasaaraha ha laga shaqeeya soo ma ahayn waxaan rabaa markaa labada qodob kusoo ururaya ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabay ee dhallinyarada ah ee wakhtiga yar haysta inaad wakhtigiisa kala shaqaysaan soo dhoweysaan ninkaas waxa uu idinka baahan yahay aad fulisaan qodobka labaad oo ah heshiiskan siyaasadeed ee gaadhnay ma aha xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxadu inay ku jirto oo maanta aanaan qaban karaynin doorashada ama madaxweynaha ama aqalada baarlamaanka ama golaha wasiirada lagu fakarayay sidaa in loo qabto oo dan ayna gaadhsiisay in iyadana aada ogaataan heshiiskaasi inuuna xeer ahayn inuuna sharci la marinay ahayn inuu yahay political agreement xalka ugu dambeeyeen isla aragnay oo sidaa yahay kaasna in la fudaydiyo ood ogaataan qodobka saddexaad aan ku soo ururinayo oo ah tiiha in la iska ilaaliyo cidaan waxu qabnaa inayna jirin wiilasheedii iyo gabdhaha iyagii baa tihiin waan idin soo dhowaynaynaa waxaan ka xoroobi doonaa qabiilka waxaan ka xoroobi doonaa kursiga reer hebel waxaan u noqon doonaa kursi deegaan doorasho leh oo cod iyo qof lagu soo doortay oo Soomaali ay dooratay waxyaalaha aan aad uga 2006 uga biyadiidanaa waxay ahayd jifooyinka qaar ba waxaan isku qabsanay war xildhibaanada ergada kuraastan dooranaysa bal haddii Soomaali ay noqon weydo reer Cumar oo kale iyo reer Nuur iyo reer Naaleey isku daro oo saddexda jifo ee kursigaas wada ergadii ha ka mid noqoto ilaa xaq odayaasha ijaanmay jifo hebel la iska leh ergadu jifadaas ay noqonaysaa marka ninkii aan kursi meesha ku lahayn macnuhu waxa weeyaan ani cid ugu matashay malaha baarlamaanka soo sidaas ma taa waan ka gudbi doonaa insha Allah mid aan u ordayno oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baarlamaanka iyo labada aqal iyo kulli laga shaqeeyo dowlad goboleedyada waxay tahay inaan gaarno dadku inay yeeshaan matalaad ay ku leeyihiin golayaasha dowladda oo ninku uu garanayo meesha uu ka soo jeedo oo uu leeyahay waa inaan degmadaydii maxaa qabtay maxaa degmo heblo laga soo qabtay ceelal maxaa loo qoday kan maxaa la yeelay laakiin hadda maxay tahay reer hebel baad ka hadlaysaa cidda ugu badan aad sooriyeysa waa oday deegaan ciddii ka soo jeeda waxaad ka hadashay waxaa weeye war mid reer hebel oo askariya jooga tuloo turkiga ma loo diraa ee hebelba waxbarasho rabee jufadaas u haysaa ha la yeelo waxaa aabbihii la cadaayay markaa kale waxba ku lahayn soo ma laakiin qofku markay noqoto inuu deegaan matalayo oo deegaan ka soo jeedo oo dadka uu matalaya ay Soomaali yihiin oo magacan qabiilka una lahayn qofkaas uu garanaya oo ka shaqeynaya ilaahay baan ka baryaynaa doorasho dambe inaynaan isugu soo noqonin oo 4.5 reer hebel ha la wareejiyo ee aan gaari doono mid qofkuna matalaadiisu ay shacab Soomaaliyeed tahay codka lagu dooranayaana 70 kun 100 kun 80 kun ay noqoto waxa uu matalayaana ay Soomaali noqoto ka raas casayr joogiyo ka raas kaambooli joogiyo ka khooriga tajor saylac korkeeda joogay inay u yihiin dad uu matalayo Soomaali uu ku matalayo oo xisbi uu ku matalayo oo laba walaali ay suurtoobi karaysa inay soo sharaxaan oo labaduba guuleystaan laba walaala inay labaduba aqalkii soo galaan oo dadnimadooda iyo aqoontooda iyo macrifadooda ay siiso midaan ilaahay ka baryanaa waa midaas waxaan ku soo ururinayaa xildhibaano waan idinka mahadcelinayaa shaqadii aad soo qabateen waan idinka mahadcelinayaa damiirkii aan idinkula soo dardaarmay waan idinka mahadcelinayaa inaad weliba dowladdii u dhawaateen oo aada uga shaqaynaysa oo dhan xan badan ayna jirin intaasoo dhan marka lagu soo daro waxaan rabaa haddana inaan sida ugu sahlan ee ugu nadiifsan ee dowladnimadeenu ay ku sii jiri kartaan ka wada shaqeyno ama ta prime ministerka ha noqoto ama heshiiska siyaasadeedeen nin cali khalib galeen leeyahay waxaan ka bartay wuxuu nin dameer dabadii ka degay dab buu mooday dameerku haddaad xagga dambe ka degto haraatiga kugu dhufo soo ma waa wax halis laakiin dab baa u geysay haddaad xagga dambe ka degto marka inaan weli ku soo noqono doorasho dadban iyo sidaan ha la yidhaahdo duruufta waddankeena taallaa maanta keentay shabaab baa culayskiile dhibkii soo dhacay baan garanaynaa
tirakoob ma jiro maanta haddii la yidhaahdo 4.5 waa laga tagay nooli xule oo yaa itiriyey yaa aan itiriyey yaa og intaan ahay xaggee qabiil wada Soomaali waa laandheere waa ka ugu laandheeraysa waxaana keenaysa ka ugu yar baa laga yaabaa inuu inta ugu quality fiicnaado dadka ugu badan ay ka soo baxaan laakiin laandheeruhu muxuu yahay ta waa halaysu sheegto ama hadda inta wax kale la warwareejinayo sidaan xal baa la mooday waxay la tahay hawsha aan ka wada shaqayno aan soo jeedsano aan ka shaqayno deganaanshaha iyo xasiloonida iyo stability-ga waddanka in la ilaaliyo